iyada oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku nool yihiin xaalado kala duwan oo dhanka nolosha ayaa wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya waxa ay si rasmi ah u daahfurtay mashruuca caafimaadka dhimirka dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay saameysay xaaladaha kala duwan iyo qalalaasaha ka jira dalka. wacyigelinta baaritaanada xogaha iyo daweyntuba oo socon doonta muddo 15 bilood waxaa la fuli doonta wasaaradda hay-adda nabadda qaramada midoobay ee UN Peace Building, saraakiil ka socotay hay-adda caafimaadka adduunka WHO, hay-adda socdaalka IOM iyo hay-adda nabadda ee qaramada midoobay ee Peace Building ayaa waxaa saraakiishii ka hadashay daahfurka mashruuca caafimaadka dhimirka dhalinyarada Soomaaliyeed ay hoosta ka xariiqeen inay gacan ka geysan doonaan hirgelintiisa. Senator Professor Cismaan Maxamuud Dufle oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhankiisa waxa uu ka hadlay saameynta cudurrada dhanka dhimirka. adduunyada mental health problems soo jira meel kasta gaar ahaan wadamada soo koraya, haddana annaga waxay noo gaar ah in aan soo marnay 30 sano u dambeeyay way aragnimo ama experience aad u dhib badan, aad u khatarsan oo weliba kaliftay yani dagaal sokeeye ay joogto noqdo dhamaad aan lahayn, dhibaatooyin qarax joogto ah, muxuu ahay to masiibooyinkaas oo weliba bani aadamka gacantiisa ku sababay iyo kuwa dabiici ahba naftooda oo muxuu ahay to natural disaster ah oo ka mid tahay maaragtay sida muxuu ahay to biibaxadii iyo abaartii iyo waxyaabihii kale oo la xiriiray. waxaasoo dhan waxa waaye waxyaabo saacidaya ama u yeeshay waddankeena kana dhigay in sida hadda la istimate gareynayo in 3 qofoodba qof uu la ildaran yahay sida la sheego muxuu ahay to cudurkan ama mental health ama cuduradan ku dhaca yani maskaxda ama dhimirka. wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Dr. Fawziya Abikar Nuur oo si rasmi ah u daahfurtay mashruuca ayaa sharaxaad ka bixisay mashruuca caafimaadka dhimirka dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay saameynta ku yeelatay xaaladaha kala duwan ee ka jira dalka. Essential Package of Health Services waxaa laga fuliyay 9 gobol markii la fiiriyay 18 gobol oo Soomaaliya. inta kale humanitarian funds lagu waday. marka aad iyo aad horta u soo dhaweynaa ogana mahad celinaya Peter iyo UN Peace Building. waa muhiim in si gooni ah loo qeexa loona address gareeyo cudurrada dhimirka. waxaan xasuustaa Dr. Ridwan WHO ilaa iyo waqti wuxuu ka sheekeynayay war haddaanan fan loo helin aan samayno UNICEF aan la hadalno trainingna aan samayno shaqaalaha xarumaha caafimaadka ka shaqeeya hal la siiyo tababar mar walba joogto ah, ayaga ha sii tababaraan intay tababari karaan, daawadana UNICEF inay keento aan ku bushkareyno si at least calaamadaha qaarkood markii loo arko qofkii loo daaweyn karo ee aan bulshada lagu jeedin. aad u mahadsan yahay Dr. Ridwan iyo WHO sababtoo ah marar badan ay soo sameeyeen aniga personally aan ogaa shirarkooda aan ka qayb galay in mental health aad iyo aad wax looga qabto. Cabdicasiis Ibrahim Axmed Okkey, TV Universal, magaalada Muqdisho.